بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا عشر كي سديدات مادة كاستمر كير عشر كان سديدات وحان قدام كفلان دونا لا فرق ضب ومهمة وحا أينا نقون دونان وحلي يراهدو كاستمر سبورت محلي يراهدا أما إلكترونيك كاستمر سبورت سيدو كانوا حبران دونا chat or email إن معاميشو لو جوابو chat أما إيميل أما أب إذا الاستعماله sidoo kale faa'iidada uu leeyahay electronic customer service in qaab electroniga ama qaab digital macaamiisha in adeegyadooda ama cabashadooda loogu xaliyo iyo faa'iido darrada uu leeyahay ayaa baran doona afartan qodob ayaa guud ahaan ku falanqeyn doona cashirkeena saddexaad ee cashirkeena sideedaad aan raade insha Allah la socod wanaagsan what is electronic customer support sidaan hore usoo sheegnay ama customer care ama customer service ama customer relations dhammaan ereyada waa ereyo isku macnaha iska agdhow balse hadda ereyadan ayaa isticmaalayna oo ah customer support kaasoo ah in macmiilka la caawiyo laguna caawiyo qaab digital ah ama qaab electronic ah marka support waxaa la yiraahdaa waa electronic support is a general terms waa si guud markaan u qeexno waa erey for customer service ay isticmaalaan customer service-ka sidoo kale waxaan dhihnaa customer support waa dhihi karnaa activitieska ama activitiyada ama shaqooyinka lagu caawiyo macaamiisha ayaa waxaa loo yaqaanaa customer support activities that know to take place over the web inta badan waxa uu ka dhexdhacaa marka aan isticmaalayno electronic support waxa la yiraahdo web ama website ama maxaa la yiraahdaa system shirkadu markaas u diyaarsan and of a digital system ayaan dhihi karaa sidoo kale digital system ama application ama waxa la yiraahdo application social media iyo waxyaabaha la midka in la isticmaalo oo macaamiisha halkaasi ay fariimahooda iyo cabashadooda ay kusoo bandhigaan isla markaana si degdeg ah loogu jawaabo ayaa waxaa loo yaqaanaa electronic customer support where the previous would have taken place on the phone or in a person awal hore ama xiliyada hore waxaa jiri jirtay in macaamiisha marka ilaa haddana shirkado ku dambeeya way jiraan balse inta badan shirkaduhu hadda way dadaalaan oo waxay samaysteen wax la yiraahdo electronic customer support waxaa ka mid ah lambarada gaaban ee shirkadaha laga waco ayaa ka mid ah iyo qaab online macaamiisha in whatsappka ama telegramka ama waxa la yiraahdo twitterka ama baraha bulshada ay ku kulantay macaamiisha su'aalo kaaga soo qoraan cabashadooda ku saabsan halkaas aad uga jawaabto marka waxaan leenahay xiliyadii hore waxaa la isticmaali jiray telephone ama face to face oo macaamilkii shirkadda ayuu imaan jiray marka hadda horumarka laga gaara ayay ka mid tahay customer service-ka marka waxyaabaha hadda la isticmaalo waxaa ka mid ah chat ama email ayaa ka mid ah chatting intaanoo dad ah ama wada isticmaalaya social media waxaa laga yaabaa in ay shirkad u dirsanayaan waxa la yiraahdo dalab ama ay cabasho muujinayaan ama adeeg culays ka haysta loo xalinayo waxyaabaha la midka marka waxyaabaha la isticmaalo waxaa ka mid ah chatting or email in lagu isticmaalo oo fariimo shirkadaha hadda inta ugu badan 90% shirkadaha email ayay isticmaalaan waayahay chat or email taking to someone through messages in qof aad kula hadasho ama talking to someone through message in really time is called chatting in qof si toos ah markaas kula hadlayo in aad kula hadasho email ama qoraal aad kula hadasho ayaa fariin aad kula hadasho ayaa waxaa loo yaqaanaa chatting bariyaha ugu dambeeyay kambaniyada provide chat support on their website-yadooda ayaa waxay ku bixiyaan wax la yiraahdo chatting website ama wax la yiraahdo customer support oo website-kooda adigoo dhexgalaya halkaasna aad kala xiriiri karto mararka qaar waxaa dhacda in website-yada marka aad gudaha u gasho aad arkayso in halkaasoo kale ay ka muuqdaan website-kii whatsappkii ama halkii shirkadda ay kala xiriiri karto tusaale ahaan hadda website-keena marka aad soo gasho waxaa arkaysaa in halkaasoo kale ay ka muuqato calaamadda whatsappka oo aad markaasi nagala soo hadli karto waayahay marka waxaan ahnay email is another popular mode of requesting for customer service emailka sidoo kale wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu caansan ee hadda
codsiyada iyo su-aalaha lagu weydiiyo kambaniyadana halkaasi ay markaasi ay ku diyaarsan yihiin. waxayna doonayaan in macaamiishooda ay u jawaabaan oo ay ka xaliyaan cabashooyinka ay ka qabaan adeegyada iyo badeecooyinka markaas laga iibiyey. si kastaba ha ahaatee wax ka badan 200 oo bilyan oo email messages ayaa la isku diraa maalin walba. waa 200 oo bilyan oo fariimo message email ka yimid ayaa la isku diraa maalin walba. sidaas darteed customer service from important segment wuxuu u noqday qayb muhiim u ah oo ah in fariimahaasi macaamiisha looga jawaabo. waxaa dhiciga baaqatay macnaha halkaas marka laga fiiriyo 200 oo bilyan oo fariimaha marka la isku diro dadkii soo dirayay fariimahan ayaa baaqday oo guryahooda jooga. taas waxay fududeysay in loo xaliyo cabashooyinkooda iyaga oo guryahooda jooga. Handling customer request through mail is one of the easiest way to provide customer service, and as you can answer queries as your confidence. sidoo kaleeto waxaa la yiri in aad hanato ama aad qabato codsiyada iyo su-aalaha ka imaanaya macaamiisha iyadoo email isticmaalayo waa mid ka mid ah waxyaabaha ama qaababka ugu fudud ee lagu bixin karo customer service-ka aadka u wanaagsan. sidoo kale waxaa ka jawaabaysaa su-aalaha waxaan uga jawaabaysaa si qanacsanaan ugu jirto. However, you should try to reply as soon as possible to win over the customer. sidoo kaleeto waa in aad isticmaashaa ama aad isku daydaa inaad uga jawaabto sida ugu dhaqsaha badan. ASAP waxa la yiraahdo waa ASAP, as soon as possible, sida ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan inaad macaamiishaasi ugu jawaabto waxaa loo yaqaanaa as soon as possible. ujeedada laga leeyahay maxay tahay in macaamiishaasi si degdeg ah oo weliba qanacsanaan ku jirto loogu jawaabo. in maxay tahay in lagu guuleysto oo la helo macaamiil. Here are some points to keep in mind. halkan waxaa ka muuqda points ama meelo muhiim oo ay tahay inaad maskaxdu ku haysto marka aad bixinayso customer service oo la xiriira chat ama email la xiriira. qodobka koowaad lagaaga baahan yahay waxay tahay always reply to customers by immediately. marka ugu horeyso waa in macaamiisha fariimahooda aad uga jawaabto si degdeg ah waa inaad uga jawaabtaa. sidoo kaleeto keep your tone professional. sidoo kaleeto waa in aad ilaalisaa codkaada. means waa inaysan kaa baxsanin kelmad waxyeeleyn karto macaamiilka ama kicin karto dareenka macaamiilka ama macaamiilka uu ka xanaaqi karo ha sameynin. sidoo kaleeto waxaa la yiraahdaa don't be crisp and to the point. sidoo kale waa inaadan noqonin qof markaasi dhib badan ama qof markaasi macaamiisha ay cabasho ka qabaan waa inaadan noqonin. sidoo kaleeto waa in aad soo bandhigtaa show respect. sumcad waa inaad u haysaa macaamiilka. waana sidoo kale waa inaad isticmaashaa wax la yiraahdo body language that can be understood easily by everyone. luqad qof walba uu fahmi karo waa inaad isticmaashaa si maadaama malaayiin ama kumanaan qof ay kula soo xiriirayaan. luqadaada waa inaysan noqon luqad gaar ah oo qof gaara ay fahmi karto. lahjad gaar ah oo qabiil gaar ah uu fahmi karo waa inaysan noqon. sidoo kale waa inaysan noqonin war lagu soo celcelinayo oo macaamiilka markaasi uu fahmi karin. marka luqadaada waa inay noqotaa luqad clear ah qof walbana uu fahmi karo. waayahay marka halkan waxaa noogu qoran advantageska ama faa'iidooyinka uu leeyahay inaan isticmaalno electronic customer service ama inaan isticmaalno message ama telephone ama live chat waxa la yiraahdo iyo waxyaabaha la midka ah. marka faa'iidooyinka ku jira waxaa ka mid ah company is available when customer need it. company-ga ama shirkadda waa la heli karaa xilli walba oo macaamiisha ay u baahdaan. macaamiilka mar walba oo shirkadda u baahdo shirkadda wuu heli karaa marka la isticmaalayo electronic customer service. faa'iidada kale ku jirto waxaa ka mid ah pre-sales support is easier to implement. sidoo kale in la sameeyo pre-sale selka ka hor in macaamiilka la caawiyo ayaa iyaduna aad u fududaanayso in la sameeyo. tusaalahaan macaamiilka markuu rabo inuu wax iibsado ka hor inuu shirkadda la soo xiriiro oo laga aqbalo codsiyadiisii iyo adeegyadiisii laga qoro aad u fududaanaya. sidoo kale waxaa fududaanayso iyadana in la dhiso xiriir wanaagsan oo dhexmara
macaamiisha iyo shirkadda iyaduna in la dhiso. sidoo kale faa'iidooyin ku jira waxaa ka mid ah real time service can be provide real time service adeegii in sida waqtiga saxda in lagu qabto iyaduna waa faa'iidooyinka uu leeyahay customer service. qodob kale waxaa la yiraahdo waayahay qodobka kale waxaa la yiraahdaa continuous feasibility is easy to maintain in shirkaddu iyo macmiilku ay is arkaan mar walba oo ay sii socoto xiriirkaasina aad ayay u fududahay. qodobka lixaad waxaa la yidhahdaa easy to maintain records and generate analytics and reports. sidoo kale waxaa ugu muhiimsan qodobkan wuxuu ka mid yahay qodobada ugu muhiimsan ee faa'iidada uu leeyahay electronic customer service. waxaa aad u fududaanayso in la record gareeyo transactionska dhex mara shirkaddii iyo macmiilkii, in la generate gareeyo oo analytics iyo falanqeyn iyo reportyo laga sameeyo macaamiishii. la yiraahdo bishan waxaana soo wacday 20,000 oo macmiil ah, waxaa jawaabahooda si sax loo siiyey intaasoo macmiil. waxyaaba ay ka cabanayeen waxaa ka mid ah 50% macaamiish waxay ka cabanayeen adeega noocaas ah, 80% waxay ka cabanayeen cabashada noocaas ah, iyo in reportyo iyo waxa la yiraahdo falanqeyn lagu sameeyo. aad ayuu u fududaa marka la isticmaalayo waxa la yiraahdo electronic customer service. haddaba faa'iido darrada maxay yihiin faa'iido darrada laga dhaxli karo haddii la isticmaalo electronic customer service? faa'iido darrada waxaa ka mid ah softwareka iyo toolska la isticmaalayo ayaa aad qaali u ah. waxaa dhici karta in shirkadda ay soo iibsato software ama qalab markaasi macaamiisha lagula xiriiri lahaa oo aad u qiimo badan. iyaduna waxay ka mid tahay faa'iido darrada maadaama shirkaddu qarash aga baxaayo, faa'iido darro halkaas ayaa laga fiirinayaa. sidoo kale waxaa ka mid ah meelaha laga fiirinayo training of customer staff is essential. shaqaalihii waxay u baahan yihiin in lagu tababaro systemkan markaasi macaamiisha lagula xiriirayo. trainingkaas shirkadda waxaa aga baxayo costi. sidoo kale waxaa loo baahan yahay shaqaale dheeri ah oo iyaduna shaqadan qabto. iyaduna waa faa'iido darro maadaama shaqaalihii hore ama shaqaale cusub in loo qaatay ay noqonayso barnaamijkan cusub ee macaamiisha cabashadooda in lagu xaliyo ay tahay. qodobka xiga waxaa la yiraahdaa it can only be additional voice support not solution itself. sidoo kale waxay u baahan tahay haddii waxaan cabasho ay ka timaado in la xaliyo maadaama iyadu aysan isxalinaynin. systemkan shirkadda ee leedahay haddii cabasho uu ka timaado, tusaale ahaan haddii call center shirkaddu ay leedahay oo macaamiisha halkaasi lagala xiriiro oo systemkii uu ku yimaado cilad ay ku timaado, wuxuu u baahan yahay in la xaliyo oo waxaa laga yaabaa in waqti ay qaadato ama lacag badan ay ku baxdo xalinta systemkii halaabay. taasna waxaa waaye waa mid ka mid ah problemska ama faa'iido darrada uu leeyahay electronic customer service. guud ahaan casharkii 8aad ee maadada customer care intaas ayaan kusoo koobayaa. waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.